wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ku-xigeenkiisa iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi oo maanta warbaahinta kula hadlayay goob ay ka hirgelinayaan garoon kubadeed oo yeelanaysa xaafadda Masalaha ee koonfurta Hargeysa waxay eedan culus dusha ka saareen mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa. Mas'uuliyiintani waxay sheegeen in dhulkan ay hore u siisay dowladda hoose waqtigaas uu gudoominayay meeyarkii hore ee caasimadda Hargeysa Mr. Chiciir. Mas'uuliyiintan ayaa xusay in dhulkan oo ahaa mid dan guud ah oo mid ka mid ah mudanayaasha golaha degmada Hargeysa uu sheegtay lahaanshihiisa muran taagnaana kadib maxkamadda gobolka Maroodijeex u ogolaatay wasaaradda ciyaaraha inay ka hirgeliso garoon kubadeed waa sida ay hadalka u dhigeen waxaana warbaahinta fariin ay u mariyeen madaxweynaha Somaliland iyo gudoomiyaha maxkamadda sare waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. maanta halka waxaan isugu nimi runtii ujeedada kulankan wuxuu daaranaa garoonkan oo ahaa garoon ka mid ah garoomo 12 ah oo dawladda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ku wareejiyay meeyarkii hore caasimaddu inaanu waxa weeye garoonkan soo celino ayaa waxa weeye dad gaar intay ku tagrifleen birihii ka gooyeen arintaa waanu ka dacwoonay dacwadaasi muddo ay socotay maxkamadda ku jirtaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka wuxuu amar nagu siiyay oo noo soo fasaxay inaanu garoonkii birihii ku soo celino oo aanu ka dhigna garoonkii wixii la dhigayna ka baabiino saaka sidaas aanu ku nimi nasiib darro waxa weeye dadku soo doortay ee golayaasha deegaanka loo soo doortay ee ahayd inay horumariyaan ee ahayd inay ka shaqeeyaan ciyaaraha iyo garoomada iyo danta guud ayaa iyagu ku noqday inay caqabad ku noqday oo dhulkii boobay oo qaatay oo faylka imka halka garoonka aynu joogno waxa weeye mid buu samaystay nin kale dogaxay halkan ka saaka ba arkaysan indhihina ku arkaysan ka baturinaya qaar kale ka mid ah kuwa la soo doortayna qaar kale boobeen waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland u sheegaynaa gudoomiyaha maxkamadda sare ogeysiinayna in dhulkii danta guud ahaa ay waxa weeye isku yihiin dadkii loo soo doortay iyagoo ahaydina ilaaliyaan kani waa garoomadii kolka horeba la inigu talagalay ee markuu maayarka Chiciir ahaa ni sameeyay 2009kii weeyaan aniga ilmaan dhalay kuma ciyaarayo idinka ku ciyaaraya dhalinyaro anigu ilmaan dhalay kuma ciyaarayo laakiin idinka ku ciyaaraya idinkaana le labada baloog ee garoonka idinka le wax barashadana idinka le anigu waxaan inoo ogeysiinayaa meeshii waata xajista la socda intaasi wixii ka dambeeyay Home Cable TV ayaa isku dayay inuu xidhiidh la sameeyo mas'uuliyiinta dowladda hoose caasimadda Hargeysa gaar ahaan maayarka iyo xildhibaan Dagox si ay uga jawaabaan eedeymahaasi balse may suurto galin kadib markii madaxdaasi la xidhiidhay ay gabi ahaanba ka gaabsadeen inay ka jawaabaan telefoonada gacanta waa markii ugu horeysay oo soo shacbaxdo muran noocan oo kala ah u dhaxeeya dowladda dhexe iyo hoose murankaasi oo dhul ku saabsan iyadoo hore loo arki jiray dadka iyo shacabka isku haysta dhul balse hadda waxay maraysaa in dowladda hoose iyo dowladda dhexe ay iskaga hor yimaadaan muran u dhaxeeya labadooda dhinac oo ku saabsan arrimaha dhulka. Waliid Cabdiraxmaan, Home Cable TV, magaalada Hargeysa.